السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka uu afkoodu uro ee uu uro reason of dry mouth. dadka uu afkoodu uro ee uu uro in afkoodu uu qalalan yahay. afka ayaa qalala kadibna urta afka ka soo baxaysa ayaa isbedesha sida ugu fiican ee ay ku soo ceshan karaan ama ay ku refresh gareyn karaan ee urtii afka ay ku qurxin karaan ay ku udgoonayn karaan baynu insha Allah muuqaal ku soo qaadanaynaa. haddaba horta intayna sida afka dadka afkoodu qalalo ee urta ka soo baxaysa afka ay urto sida loo hagaajinayo ama loo fix gareynayo ama loo treat gareynayo ama solutionka iyo xalka aynu sidno marka aynu ka tagno maxaa sababa afku inuu qalalo. afku inuu qalalo afar shay baa sababa. ta koowaad waa salafari glandiska ama qajidhada candhuuftu aan si fiican u shaqaynayn. ta labaad waa dehydration ama waa fuuq waa qofkoo haraada oo cabitaanka biyuhu ay ku yar yihiin ama oral ha ku haraado ama biyuhuba ha ku yaraadaan yacni qofkoo aad u haraatan waan biyo ku filan cabbin. waxa kale oo sababa cadhada joogtada ah ee badan. qofku hadduu anxious noqdo ama nervous noqdo oo uu mar kasta cadhaysan yahay ama cadhadiisu ay badan tahay ama marka uu cadhoodaba afku u qalalaa. qodobka afraad ee ugu dambeeya waxa weeyaan ka qayb qaata afku inuu qalalo waa talkative. dadka hadalka badan ee mar kasta hadla ee mar kasta dhuruyama ama hadalkaasi ha ahaado inaad adigu markaas addee lecture jeedinayso ama hadalkaaguba ha iska badda gaar ahaan hadallada xidhiidhka ee tooska u xidhiidhka sida macallimiinta oo kale qofka 4 saacadood 2 saacadood ku dhowaad hadlaya kaana afku waa u qalalaa urtu waa isbedeshaa. haddaba waxaa jirta 2 shay oo urta lagu hagaajiyo. mid hal qodob buu dawo ka yahay midna inta kale ayuu dawo ka yahay. 4 qodob aynu sheegnay 4 inay afka ay qalajiyaan ama dry mouth ay sababaan. ta koowaad waa liindhanaantu waxay ka qayb qaadataa salafari glandiska qanjidhada la yidhaahdo ee soo daaya candhuufta in ay cariso oo stimulation ay ku samayso oo candhuuf badan la soo daayo oo afkaagii uu qoyo oo urtaada ay fiicnaato. cabista biyaha waa qodobka labaad. cabista biyaha badsataana waxa ay keentaa afkii qalalay ee hadalku qalajiyay hadalka faraha badani ama cadhadu ay qalajisay ama haraadku qalajiyay inay qooyaan. waa marka afka qalalay kugu sababo urta afka ka soo baxaysa inay qarmuunaato ama aanay ahaanin marka ay noqoto mid isbedesha. labadaa shay ayuunbaa lagu tirid garayaa oo lagu daweeyaa. liindhanaanta isticmaasho iyo biyo badan aad cabto. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.